waa hagaagid ilaahantiin daawadayaasha sida joogtada ama sida tooska inagu xidhan bartan waxaanu kula wadaagnaa muuqaalo kala duwan iyo sidoo kale faalooyin kala duwan oo la xiriira sportska waliba khaasatan kuwa wadanka waxaanu wada ognahay dhawaan in si joogta ama koobka xiisaha leh uu ka socday Berbera oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ciyaartoy kala duwan oo ka soo kala kictimay guud ahaan gobolada Soomaaliland haddaba tartankan ayaa maraya gabagabadiisii waxa loo baxay sidii dhamaad iyadoo ay tartankani ka harsan yihiin maalmo kooban sidii afar ciyaarood oo sidii dhamaadka la ciyaari doono iyo laba kulan oo semifinal finalka la ciyaarayo iyo hal kulan oo finalka la ciyaari doono waxa guud ahaan ka haray tartankani maalmo kooban marka la isku daro 10 maalmood aan gaaraynin iyadoo oo tartankan xiise gooniyo uu leeyahay haddaba aynu ku yaraan noqono tartankan gobolada qaar waxa ka soo kictimay sida Hargeysa 3 kooxood Berbero 2 kooxood ka socdeen iyo sidoo kale Burco 2 kooxood ka socdeen Laascaanood Ceyrgaaba iyo Boorama oo hal koox la siiyay Gibiley iyadoo hal koox ka socotay haddaba maxay isu soo haray yaa soo baxay haddaba aan idinku celiyo gobolada qaar waxa uu saamaxay inay mar labaad sii joogaan saaxadda sida dhamaadka Burco Berbera waxa uu saamaxay kooxaha ka socday kooxaha labaad oo caawiyay iyaga oo iminka ay ku sugan yihiin labadii kooxood ee horyaalada aan soo qaadin tartankan ay ku sugan yihiin gaashaan Burco oo kaalinta labaad gashay iyo DB Wall oo kaalinta labaad gashay ayaa maanta saaxadda ku sugan Berberana matali doona Burcana matali doona haddaba xiise gooniyo waxa leh Ceyrgaabo hal koox baa ka socotay wali waxa istiil waxay joogtaa sidii dhamaadka Sool galabta ayay soo baxeen sidoo kale Boorama iyaguna way joogtaa kooxdii ka socotay Gibiley nasiib uma helin tartankan inay ka simid ahaato saddexdii kooxood ee caasimadda Hargeysa ka socday iyaga oo markii ugu horeysayba ku baxay 1 oo maanta jooga sidii dhamaadka haddaba yaa tartankan ku guuleysan doona maxaa xiise gooniyo ay u leeyihiin maxay abaalmarin u helaysaa kooxda ku guuleysay tartankan iyadoo waxyaabahaas oo dhami ay xusnaan doonaan waxa dadyo kala duwan ay si joogta ay ugu xiran yihiin maalinla warbaahinta wadanka oo aan hore waqtiyadii hore iminka balse si joogta u baahinaysa tartankan haddaba maxaa xiise gooniyo tartankan leeyahay yaa isu soo haray sida dhamaadka yaa matali doona sida ay isugu dhaceen waxa isku aaday oo ciyaarta khamiista lagu furi doono wareegga sida dhamaadka labada gobol ee Togdheer iyo sidoo kale Barodjeex labada kooxood ee ka kala socda waa dawladda hoose Hargeysa iyo gaashaan Burco kulankaasi oo xiisihiisa leh xamaasadiisa leh waa araar kaliya knockout buu noqon doona yaa si hari doona yaa afar dhamaadka u gudbi doona waxa ku xigi doona sidoo kale dawladda hoose Ceyrgaabo iyo dawladda hoose Boorama labada gobol yaa sidii dhamaadka joogi doona yaa tartanka ka simid ahaan doona waa Goodir Hargeysa iyo DB Wall galabta ayay hadhay kooxdii Goodir Berbera ku ciyaaraysay ee horyaalkana qaaday nasiib uma helin balse kooxdii kaalinta labaad gashay ba ku jirta sida dhamaadka joogta Berberana iyada matali doonta taageerayaashii dhammaan matalayna iyada ay si toos ah u taageeri doonaan haddaba labada kooxoodna ayaa soo bixi doona ugu dambeyn waa xool Hargeysa iyo sidoo kale kooxda ku ciyaaraysa gaashaan Sool yaa af u gudbi doona afar dhamaadka tartankan waxa si joogta u dhiirigelinayay ganacsatada iyo siyaasiyiinta kala duwan oo mid walba uu gobolkiisa taageero u galiyay safar dheerna uu galiyay tartankani waxa maalmahan inagu soo foodalay Berbera ay marti gali doontaa taageerayaashii ugu badnaa oo tartankan si joogta garoonka Cabdalla Stadium u daawan doona uguna sugnaan doona kooxdu qaada ama tartankan ku guuleysata sida ay wasaaraddu shaacisay laga dhawaajiyay waxa nasiib u heli doontaa inay safar dabadda ay ku soo ciyaarto waa markii ugu horeysay ee koox ku guuleysata koob kamida koobabka ee lagu qabto wadanka Soomaaliland ay u heli doonto si joogta safar ay ugu baxaan wadanka dabadiisa wadamadaasi waliba ma shaacin wasaaradda kamay soo bixin balse wadamada jaarka ayay noqon doonaan Djibouti Ethiopia iyo sidoo kale wadamada kale ay leedahay xiriirka Soomaaliland tartankan ciyaartoy badan baa soo saaray ciyaartoy badan oo gobolada oo aan nasiib u helin shaashadaha inay ka soo muuqdaan ayaa maanta ku soo bandhigaya hibadooda kubadda cagta waxa sidoo kale xusid mudan xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo ku hawlan sidii loo sameyn lahaa xul qaran Soomaaliland ay yeelato dhammaan ciyaartoyda halkan ka muuqatay gobolada Soomaaliland koobsanayo waxay hore u shaaciyeen xiriirku inay soo xuli doonaan xulka qaranka markii ugu horeysana la sameyn doono funaanad qaran oo xulka qaranku yeelan doono ama astaanta xulka qaranka ciyaartoyda ku soo bixi doonta Soomaaliland ayaa matali doona balse wadamada ayuu la ciyaari doona su'aalo badan baa ka taagan taga inagoo barnaamijyo dambe aynu ku eegi doono waxa la qabanayaa bisha 10aad koobkii gobolada oo si joogta loo shaaciyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inuu isna bisha 10aad furmi doono gobolada oo wajahi doona iyadoo sanad
walba ay joogto ka dhigi doonaan balse iminka 2 sano aanu qabsoomin iyadoo 2022 ay ugu dambeysay balse maanta 2020 bishii Sebtembar xilliga uu qabsoomi doono gobollo badan baa ka soo qayb gali doona oo nasiib u helin inay championka ay ka mid noqdaan haddaba yaa ku guuleysan doona waxaad hoos nugula wadaagaysaa xiisaha uu yeelanayo tartankani iyadoo gobol walba maanta kooxay matalayso 6 gobol ee waaweyn ay Soomaaliland hore kubadda cagta ciyaari jireen maanta ay joogaan saxada dad badan doodiyo kala duwan baa safar u galaya magaalada Berbera oo aad saxmadeeda iyo sidoo kale socodkeeda hodheelada laga dareemayo culays bulshada ku sugan dadka ku sugan ee Berbera yimi tani waa markii ugu horeysay koob laga kaxeeyo caasimadda iyadoo la geeyo koob iyadoo lagu soo ciyaarayo gobolada kale waxay ballan qaadeen xiriirku in koobkan mar walba ay marti gelin doonaan gobolada dalka iyadoo Ceerigaabo la geyn doono Laascaanood la geyn doono balse kubadda cagta Soomaaliland ayaa sanadkii ugu dambeeyay isbedel ku yimi 2022 ay ahayd sanad taariikhiya iyadoo koobo badan ay qabsoomeen koobo badan oo Soomaaliland hore aan uga jirin la hirgeliyay sida horyaalka Soomaaliland ama koobka liiga loo yaqaano oo joogto ka noqday guud ahaan Soomaaliland xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa galaya sanadkiisii labaad balse 2022 wuxuu kaga doonaan doona maxaa qabsoomi doona yaa koobka nasiib u heli doona waxa markii ugu horeysay wadanka la keenay koobka championka oo badanaa meheradaha aanay hore u iibin jirin balse iminka ka muuqan doona garoonka ciyaarta ugu dambaysa isla caawana ku sugan magaalada Berbera koobkan yaa nasiib u heli doona waxa markii ugu horeysay taariikhda gashay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intuu safarka ka ixtimay Hargeysa koob maxalli oo ka soo jaray xariga walaw lagu yaqaanay koobka gobolada kale inay si toos loo furo koobkan ayaa ah koob xiise gooniya leh baaxad weyn ku fadhiya xamaasad weyn ku fadhiya balse yaa nasiib u heli doona faallooyinka kala duwan hoos ayaan nagula wadaagi doontaa yaa dhafar dhamaad iman doona sidoo kale dadyowga halkan sida joogtada nagu xidhan waxaan leenahay mar walba aad baad u mahadsantihiin waxaan idinkula wadaagi doonaa warbixino joogta inta uu tartankani socdo faallooyin iyo sidoo kale qoraallo talooyin iyo tusaale hoos ayaan nagula wadaagi doontaa aad baad u mahadsantihiin meel walba aad naga daawanaysaan daafaca caalamka iyo guud ahaan